munaasabadan oo si heersara loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu caleema saarayay suldaanka guud ee bariga Afrika oo yeelanayso beesha Direed. xafladan lagu caleema saarayay suldaanka guud ee beesha Direed Suldaan Xasan Ibraahim Ismaaciil ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal, salaadiin, waxgarad, haween, cuqaal, culimaaddin, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo dhamaantood ka socday guud ahaan beelaha Soomaaliyeed. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha jaaliyada Somaliland ee dalkani Kenya Yuusuf Farax Doodi waxaana uu sheegay in uu ku faraxsan yahay caleema saarka suldaanka isla markaana ay la shaqeyn doonaan ka jahliyadahan Suldaan Xasan Ibraahim Ismaaciil anaga markii horeba suldaan buu ka jahliyadahan noo ahaa wuuna la shaqeynayay waxa uu suldaan ugu cusub ma aha iminkana waxaanu sii xoojin doonaa hadii Ilaahay ka dhigo taageeradii aan u haynay Suldaan Xasan Ibraahim Ismaaciil. sidoo kale goobta waxaa hadallo soo dhaweyn iyo marxabayn ah ka jeediyay salaadiin, odayaal, waxgarad iyo waliba siyaasiin waxaana dhamaantood ay si diiran u soo dhaweeyeen Suldaan Xasan Ibraahim Ismaaciil oo ah suldaanka guud ee beelaha Direed ee wadamada bariga Afrika waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay suldaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaana ay alla uga baryeen in uu la garab galo xilka culus ee loo caleema saaray. سلطان محمد كراهي حسن إبراهيم أنا سي وطمة تقني مجلسي حلك الله على مساري إلهي هو سخره ومسؤولية علوس وباهن دلقات وباهن وحقبت وباهن هوشيدي سلطان حسن إبراهيم إسماعيل هرت سلطان بوها سيد حقيقة تهي وأنا ولا شقين ترني وانين آد وفرعون سلطان حسن وحان وشيغهايا سلطان حسنو maanta wixii laga bilowdo waxa la yiri tukana inaad ka dareen badnaato durwaana aad ka deeqsid badnaato dhul aad ka daba wanaagsan laga rabaa wuxuu ku shaqeyn jiray waxba kama bedeli karo waayo 40 sano ama 50 sano wuxuu ku shaqeynayay inuu isin Soomaaliyeed yahay oo isin Direed yahay oo isin Sheekh Saxaaqiya waxaanu alle ka rajaynaynaa in Soomaali weyn xilka suldaanka ay saaratay ama uu saaray ismkii waalidka iyo diro uu saaray in Ilaahay ku guuleeyo. ugu dambeyn suldaanka cusub ee la caleema saaray Suldaan Xasan Ibraahim Ismaaciil oo caleema saarka kadib hadal kooban jeediyay ayaa u mahad celiyay ka soo qaybgalayaasha xafladda lagu caleema saarayay waxaana hadaladiisi kamid ahaa waxaan salaamayaa xafladan qiimaha leh ee quruxda leh qoladii soo abaabushay ee halkan keentay waan salaamayaa waxaan salaamayaa cuqaashan salaamayaa waxaan salaamayaa garaadadan salaamayaa waxaan salaamayaa hablahan salaamayaa waxaan salaamayaa dhalinyaradan salaamayaa xasan Sheekh Umar Hon Cable TV Nairobi.